waxa uu dareemay wiilkani in naagi daba socoto ilaalana ka tahay dhaqdhaqaaqiisa si shaki lehna gadaashiisa ay u gaatamayso. inta ay u soo dhawaatay ayay u sheegtay in dukaan alaabaha carruurtu ku ciyaaraan ay u kaxaynayso una gadayso wax walba uu doonayo. waxa uu hubsaday wiilkii in uu khatar ku dhex jiro, mana uusan garanayn sidii uu keligii naftiisa u badbaadin lahaa. isla waqtigaas ayuu soo xasuustay waanadii aabihii, waxa uuna ku kacay arrin yaab leh, taas oo ka yaabisay qoyskii iyo booliskiiba. saami waxa uu ahaa wiil yar oo maskiin ah, da ahaanna waxa uu ahaa 9 sano jir. iskoolkiisu waxa uu u dhowaa gurigiisa, sidaasi darteed waxa uu uga soo laaban jiray guriga isaga oo ku imanaya lugihiisa maalin walba. maalin ka mida maalmaha isagoo ka soo laabtay iskuulkii una lugaynaya gurigiisii ayaa waxa uu arkay arrin shaki geliyey. waxa uu dareemay jaqaf qof daba socda muddo badan oo meeshii uu maraba daba soconaya. waa uu eegay, mise waa haweeney dhexdhexaad ah oo aad ugu dhaygagsan. waxa uu ka cabsaday eegmadeeda iyo sida ay ugu dheegagsan tahay, taas ayaa cabsi ku abuurtay. waxa uuna sii watay socodkiisii isaga oo iska dhigaya in uusan dareensanayn. waxa uu isku dayay in uu dheereeyo, iyaduna waa ay ka daba dheeraynaysay. waxa uu galay xaalad cabsi ah, maadaama waddadu ahayd mid cidlo ah, uusanna helayn qof caawiya. way u soo dhawaatay naagtii wiilkii, waxayna ku tiri hadallo shaki geliyey. waxay u sheegtay inay geyn doonto dukaanka ugu weyn ee lagu iibiyo alaabayda carruurtu ku ciyaaraan. waxay ka dalbatay inuu u raaco una soo iibin doono ciyaar kasta oo uu doonayo. ilmo kasta oo maqla hadalka haweenaydan wuu iska rumaysan lahaa, laakiin saami ma uusan ahayn mooge laga caqli badin karo. waxa uu hubsaday in ay doonayso inay xaddo. waxa uu garanayay in ay waxyaabo xun ku samayn doonto. cabsidii ayaa ku siyaaday wadnihiisa. waxa uu isku dayay wiilkii inuu si degdeg badan u fakaro, helana xal uu uga baxsan karo haweenaydan, qoyskiisana mar kale ku arki karo. isla waqtiga ayuu xasuustay waanadii aabihii ee maskaxda badnayd oo uu ugu sheegay in markii xaaladahan oo kale uu wajaha inuu sameeyo. waanadaasi waxay ahayd mid yaab leh, laakiin waxa ay ahayd xalka ugu dambeeya ee uu samayn karo. naagtii waxaa kadis ku noqotay in wiilkii uu galay dukaan bagaashka lagu iibsho. way u qaadan weyday inuu caqli intaa la-eg adeegsaday. waxay go'aansatay inay dukaanka hortiisa ku sugto ilaa iyo inta uu ka soo baxayo si uusan uga cararinin. balse waxa uu sameeyey intaa kadib ayaa haweenaydan ka yeeshay in ay aad u naxdo. sababta uu dukaanka u galay ma aysan ahayn inuu doonayay waxgadasho, balse gabadha keliya ee iibisada ka ahayd dukaanka ayuu u tegay. waxa uu ka dalbaday inay u soo dhawaato si uu wax ugu sheego. wixii uu ku yidhi ayaana badbaadiyey noloshiisii. waxaan kaa baryayaa in aad iska dhigtid hooyaday, sababta oo ah haweenayda albaabka taagani waxay doonaysaa in ay i xaddo. iibisadii dukaanku way amakaagtay, waxayna hubsatay in arrinkani dhab yahay, wadciga wiilkani ku sugan yahayna mid aad u khatar badan uu yahay. way ka yeeshay, waxayna isaga ka dalbatay inuu dukaanka ku dhex jiro, wax walba oo dhacana uusan ka bixinin. kadibna albaabkii dukaanka ayay aaday dhankiisa, waxayna albaabkii kusoo xirtay wiilkii. waxa ayna aad ugu qaylisay naagtii tuugada ahayd ee albaabka hortaagnayd. waxa ayna si degdeg ah uga dalbatay inay ka hor dhaqaaqdo dukaankeeda. waxay ogaatay naagtii wiilka rabtay inay xaddo in la ogaado qorshaheeda, meeshiina waa ay ka carartay. kadibna iibisadii dukaanku waxay wacday askartii, waxayna u sheegtay wixii dhacay. askartii ayaa timid, waxayna u celiyeen wiilkii qoyskiisii. sidoo kale waxay ka dalbadeen askartii qoyskiisa inaan iskoolka lagu celinin ilaa laga soo helo naagtii rabtay inay wiilka xaddo. booliskii waxay bilaabeen inay baaraan kaamirooyinkii CCTV-ga goobaha arrinku ka dhacayna ku xiraa iyo halka ay u carartay. muddo isbuuc ah kadibna waxay ku guuleysteen inay helaan gurigeeda. kadibna waa ay soo xireen. ugu dambeynna waxaa la ogaaday inay tahay haweeney nafsiyan u xanuunsan, rabtayna in ay xaddo wiilkan oo dhibaatayso. maxkamadiina waxay ku xukuntay inay isbitaalka xanuunada nafsiga ah lagu celiyo oo lagu daweeyo haweeneydan. wiilkanna waalidkiis aad ayay ugu faaneen geesinimadiisa iyo sida caqliga badan ee isu badbaadiyey. waxayna saamixeen in la faafiyo muuqaalkii uu dukaanka galayay ee uu dalbanayay caawinta, si ay u ogaadaan bulshada iyo carruurtuba sida ay naftooda u badbaadin lahaayeen haddii ay wajahaan khatarahan oo kale. YouTube-ka haddaad naga daawanayso waxaan kaa codsanayaa inaad
subscribe iyo like inoo saarto si muuqaalku dad badan u gaaro dhanka facebookana waxaan ka codsanaynaa inaad soo follow garayso nagu taxnaato like-na inoo taabato si dad badan u gaaro inoona share garayso aad iyo aad ayaad u mahadsantahay